banaanbaxan oo ay ka qayb galeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxayaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goor sida ay banaanbaxayaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya banaanbaxayaashan oo ay ka muuqatay carax xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyena isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka banaanbaxayay oo is-hortaag ku sameeyay gawaarida isticmaalaysay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door ah hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada ceelgaab sayidka iyo waliba wadada xawataako ee soo hormartay SYL waxayse banaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad moodo iyaga laftooda inay banaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii banaanbaxayay qaar ka mid ah dadkii caraysnaa ee maanta banaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulannay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin وحي كسو horjeeda nabadda wixii ka soo horjeeda diidana waxaan diidanahay maamulka dibadda lagu soo lacagta la siisaayo Soomaalida la kala gadaayo oo wax walba ee qaranka in lagu dumiyo la rabo ayaan diidanahay ma ogolin hadana dadweynaha Soomaaliyeed hadana ciidamada dalka Soomaaliyeed hadana waxaan rabnaa nabad waxaan u dagaalamaynaa nabad Soomaaliyeed waxaan u dagaalamaynaa gobonnimo wax walba wixii Soomaali nabad ka dhalihay taageersanahay anagu ma taageersanin dollar haysto naftayda maalkayga ku weyn gooraan ku dhaawacno hadeerna dhaawac ka soo bax banaan bixin nabadeedaan ku dhaawacbay hadeerna waxaan diyaar u ahay in Soomaaliya nabad hesho in dadweynaha Soomaaliyeed nabad helo in caruurta iyo hooyooyinka wax walba gumaadka laga helo nabadda waxa ka soo horjeeda Shariif Sakiin iyo xulufyada oo wato mana doonayno waxaan ogolahay shacabka culimadiinka odayaasha dhaqanka ururka dhalinyarada qaladayadu annaga iskale waxaan diidanahay maya gudoomiyaha majmaca culimadiinka Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Dhacisow oo kamid ah dadkii banaanbaxan ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garuusanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxay kambana waxay ka dhigan yihiin Soomaaliya xur maaha Soomaaliya dibadda looga taliyaa waxa taladanadii la wareegay shacabka Soomaaliyeed qaatay ajnabi oo si dulmi ku qaatay iyo dirif ajnabiga national qaatay cadawga Soomaaliyeed awaamid qaatay taasana diidanahay waxaan ka soo horjeednaa mu'aamarada uu sameeyo gudoomiyaha baarlamaanka shaqo kuma leh adduunkana kama jirto qaanuunkana meel lama dhigna in ra'iisul baarlamaan oo dowlad soo dhiso oo dowlad wax ka qaybsado waa dulmi waxaan ka soo horjeednaa in barnaamijka shacbiga Soomaaliyeed rabitaankiisa iyo taageeradiisa inuu socodsiiyo ayaan diidanahay waxaan ka codsanaynaa inuu ka naqdo shacbiga Soomaaliyeed waxa hadlahay umadiisa odayaasha dhalinyarada ciidamada qalabka sida haweenka ayaa ku garab taagan
banaanbaxan oo si iskooda ay dadkii dhigayay isu soo abaabuleen ayaa yimid kadib markii ay soo ifbaxeen saaka warar sheegaya in laga yaabo inuu iscasilaad ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya cadaadiskaas oo ku yimid faragelin ka timid wadamo la tuunsan yahay balse aan la carabaabin dadka caraysan ayaa maanta dibadbaxooda waxay ku muujinayaan sida weerarka soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen faragelinta shisheeyaha ee ka dhanka dowlad wanaagga Soomaaliya iyagoo dhanka kalena si aad u taageersanaa ama muujinaya taageerada u hayaan ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo عبد النور مودي تلفزيون كقرنك مقدش